marka aad sign up tiraahdo waxaad buuxinaysaa faylkan. Halka koowaad waxaad gelinaysaa magaca, halkan magac kale, magacaasi hore account name wuxuu ahaanayaa magaca adigu ka duwan magacaagan kale oo aad adigu la baxayso. Halkan kale waxaad gelinaysaa city magaalada aad joogto. Halkan kale waxaad gelinaysaa address-ka. Xagana waxaad gelinaysaa country-ga oo halkan aad ka dhex dooranayso. Xagan kale waxaad gelinaysaa zip code ama postal code. Xagan email, marka email-ka aad gelinaysa ha ahaado mid shaqeynaya, waayo code baa lagugu soo dirayaa. Halkan waxaad gelinaysaa numberkaaga. Xagana TVska account-ka qaybta xagan aad ka gelinaysaa marka personal iyo wuxuu kale yahay business oo qaar baa soo dhigaya. Marka adigu halka sare personalka ayaad iska dooranaysaa maadaama aad tahay mid ku shaqaysanaya oo aad shirkad iyo xale. Xagan kale waxaad gelinaysaa password, waana password-ka adigu marka hore meel kusoo qorato oo aad kusoo koobiyeyso, waayo password-ka iyo email-ku waa muhiim, waa labada keliya ee la iska rabo inaad markasta xafido, sababtoo ah gmail-ka ayaa markasta kor loogu soo dirayaa. Tusaale sidan oo kale ayaa markaad soo buuxiso halkaa yar ugu dambeysa baad gelinaysaa si kabshaan. Kabshu wuxuu noqonayaa 5091181 zip baad leedahay. Wuxuu ku leeyahay dhammaan waa lagu guuleystay, waa macnaha gmail-ka yool. Taas waxaa laygu soo diray fariin, marka fariintan ayaan furayaa. Fariintan markaan furo waxaan kasoo qaadanayaa ID. Waa maxay? ID waa intaa yar, markasta ID baa lagu soo dirayaa. Marka ID-gan ayaan koobiyeynayaa. Markaan koobiyeeyo waan qaadanayaa ID-ga. Marka ID-ga halkan aan gashanayaa. Markaan ID-ga halkan gashado, marka ID-gii password-ka aan gashadayna